السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأصبح كلا قروح بدن وأنا جي أضيق عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد سعيد عبدي محمد سعيدو صاحب وحن كويدي يمكن لما إنه أد سجور هاي النموذج شكون الشقادة ما يكون الشقادة شكون الشقادة تذكر وشك هيه واحد يقول أنتها بريجي هراء واحد هاي فنانة هيه oo bulsho badan ku xidhan oo bulsho badan maaweeliya oo bulsho badan oo heesa oo bulsho badan ay aad u jecel yihiin inkastoo bulshadu intay imika bariga hore ku jeclayd in ka badan imika ay ku jeceshahay waxaad ka warantaa waa kala laba nololood weeyaan nolosha fanka iyo nolosha dadka iska caadiga ahi iskuma dhawo waa kala laba nololood weeyaan barigii horeed fanaanka ahayd iyo imika maxaa farqiyo u dhaxeeya bay kula tahay imika qof caadiga day tahay oo dadka shicibka ka mid tahay shicibka aad ka mid tahay iyo barigii hore maxaa wax farqiyo u dhaxeeya kula tahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iska leh taageerayaashayda kuwii hore iyo kuwii dambeba sax aad baan u salaamayaa qalbigaan idinka salaamayaa waan idin jeclahay waxa wacyigelina mar walba inaan idin sheegana waan jeclahay sikiriye mar labaad barasho wanaagsan waa walaalkay iga yar marna isku shaqaanu nahay waxaan ka wada shaqeynaa meeshaan ka shaqeeyo waan yaro tafa oo dhalinyaro ah jawaabtaadii aan imaado waxa u dhaxeeya dee waxa dusheeda ka muuqda maasha allah oo waxaan ka imi waddo dhuxuleed bay ahayd horaan u tilmaamay fanku mustaqbal ma leh xaqiiq inaad iska ururiso intaad yar tahay unba fiican if iyo aakhir midna ma wanaagsana dhalinyaradii aan ka imina aad baan u salaamaya waxaan leeyahay iska soo ururiya oo kollaba saarku mar buu idinka soo go'ayahay dar ilaahay iyaga uga imanaya dad kuma sii fogaanayo darajo lagama gaadho intii nin ay ku soo jirtayba dee darajo lagama gaadho anigana nolol cusub baan bilaabay maasha allah alxamdulilah tanaa qabow isku mid maaha jawaabtaad intaas ku soo koobi lahaa had ku dar waa sax weeyaan Siciidow aragtiyo kala duwan bay bilaadanku leeyihiin oo haday noqoto xag mustaqbalka dhow iyo xag mustaqbalka fog labadaba nin mustaqbalka fog aragtiyo badan leeyahay inkastoo aragtiyaha aan dadku dee aad loogu sheegin waan ku sheegay laakiin aragtidaad ugu badan aad isleedahay mustaqbalka ku qorshaysan fog ama mustaqbalka dhow qorshayaashaada ka mid ah wal maxay kula tahay horta iskiriyaad baad u mahadsantahay haye jawaabtiina waan hayaaba habeenkii markaan seexdo iyo markaan soo kacoba labadaba niyadeeda way ku jirtaa maasha allah anigu waxaan isleeyahay meel culimadu ku muxaadarayso oo qurux badan iyo masaajid isku yaalla dhis oo dabadna sidii standardkii caalamka oo kale qofku waa inuu kursigiisa fadhiisan karaa rag iyo dumarku ragguna inay meel ka soo galaan dumarkuna inay meel ka soo galaan culimadu meel ka soo galaan madaxdu markay ku timaado meel ka soo galaan marka dhulkiina insha allah dhawaan waa helaya dee dadkaan ay la dhisay anigu lacag ma haysto halkaasaan jeclahay oo sidii aan jeclahay oo aan isleeyahay halkaa ka shaqe maasha allah oo aan jeclahay in mar walba aynu wacdiga iyo culimada iyo dhalinyarada iyo wacyigelinta mar walba dee inaan ku jiro aad baan u jeclahay meelahaasaan mustaqbalka isleeyahay insha allah dhow samee maasha allah waxaad kale habeenkii markaas seexdaba arrintaas way iga guuday waxaad kale iga warantaa maxamedow waxaa jirta ubad yaryar oo imika aad u soo barbaarayo aad u fiican oo aan laga yaabo inaanay wax badan haysanin doonayaan inay diinta islaamka ay aad u bartaan oo xiiseynayaan inay diinta islaamka bartaan doonaysa in bulshada ay gacan qabato dadkaa kasoo kale maxaad odhan lahayd bulshada ood odhan lahayd dadkaas kale kala qayb qaata in ninka qofkaas kale la gacan qabto in haddii looga dhigi karayo waxbarashooyinka bilaash looga dhigo qofka hadduu diintii u heelan yahay anigu meesha aan doonaya inaan dhiso waxaan ugu talagalay jaamacadda ardayda qalin jabinaysa inaan bilaash ka dhigo maasha allah dadka ismehersanaya inaan bilaash uga dhigo maasha allah wax kastoo la qabanayo wax kastoo lagu sameynayo caawimo inaan bilaash ka dhigo aanan meesha lacag ka doonin maasha allah dadkayna daawanaya ama muslimiinta ama ummadda soomaaliyeed meel kastii joogtaba waxaan leeyahay isu gargaara wixii aa wada haystaan wada cuna
kaan waxbarashada ahayn waxbarashada ka bixi ما شاء الله ka gaajoonaya adduunku waxba maaha maracado nacnac alle oo afarta koona ka xiran baa lagu qaadaya lacag kasta lahaw magac kasta lahaw qurux kasta lahaw marka intaad adduunka joogto waxa lagula cuno haddaad wax haysato muslimka iyo agoonta iyo intii dhibaataysan iyo qofka wax haysto u gargaar baan oran lahaa wadhamaadii weeyaan aad baad u mahadsantahay dadkana waynu salaamaynaa marxaba sikriya tiktokiisa halka social media uu ku leeyahay page-kiisa kaygana linkigan soo dhigaya odayga dee ka shida wardhamaadii weeyaan dhalinyarada niyadda loo kaawadeeyaay ka camira aad baan idin jeclahay waan idin salaamayaa waxaan leeyahay cis iyo sharaf ku noolaada meel kastaa joogtaan haddaad warwarto oo dhibaataysan tahay wajin kula faqo adduunka iyo waxaad isku mashquuliso ha isku mashquulin haddii laakiin warwarku kaa hari waayo tasbiixda ku tallaal naftaada wuxuu way kaa ba'ayaan ilaahay isu dhiib wallaahi inaan waxba kaa xumaanayn iyo bilaahi tallah ما شاء الله aad baan idin salaamaya masha Allah aad baan kaaga qaadnay asxaabtaydina aad bay kaaga qaadeen maxamed siciid cabdi oo soo qaban doona dee subaxyo kale badan haddii ilaahay yidhaahdo halkaa inoogu joogto maanta